iyadoo xaalado adag lacag la'aan iyo sixir barar uu ka jira guud ahaan Puntland iyo Soomaaliya gaar ahaan Puntland ayaa degmada Jariban ee gobolka Mudug waxa deeq lacageed la gaarsiiyay dhowr qoys oo kamid ah dadka ku sugan magaalada Jariban gudaheeda dadkan ayaa lacagtan waxa gaarsiiyay dad qurbaha jooga iyagoona u soo wakiishay wariye Farxaan Faarax Cabdi oo kamid ah wariyaasha degmada Jariban iyo gobolka Mudug deeqda lacagtahay ayuu gudoonsiiyay lacagtan gabar walaal soo dhiibtay u ducee maaragtay waxa way iyaduna ilaahay maaragtay walaal Allah ka Allah khayr hasiyo ilaahay ka abaal mariyo wax khayr qaba Allah u bedelo meesha ka soo ala ilaahay wax khayr qaba u bedelo dad iyo Allah u barakeeyo muraadkeeda ay ku leedahay Allah ku siiyo $100 lacag ku wana gabar walaal ba soo baxsatay sadaqay ula soo baxsatay marka ilaahay kugu anfaco ilaahay iyadana wax gaarsiiyo khayrkeeda iyo ducadeeda ilaahay gaarsiiyo ilaahay wax ka dheefsiiyo annagana waa u baahanahay meesha kana waa jeedaan waxaan bixinaynaa soo gaarsiinay lacagtii ay noo soo dhiibteen qayb kamid ah $100 baan siinaynaa sanweyne waxa soo bixiyay lacagtan gabar walaal ah baa soo dhiibtay adeer haye sadaqay u soo baxsatay haye marka adiga iska leh waaye $100 iyo ka lumiya waaye gabadhaasna u duceyno ilaahay khayr ha siiyo gabadha khayr Allah siiyo Allah leeyahay gabadha Allah leeyahay amiin marka waxaan leenahay wax badan tarimayso laakiin $100 aan u wadno oo lacagta kamid ah insha Allah waxaan rajaynaynaa in wax una isayada barayso haduu la yiraahdo cid kale oo caawin karto walaalana ha caawiso ilaahay maartay gabar walaal soo dhiibtay ilaahay ka soo waab ilaahay mawjadaha ka soo waabiyo muraadkeedana Allah sahlo tii keentay iyo kan wada kulligood Allah ilaahay u kaalmeeyo ilaahay u kaalmeeyo duuniya aakhiraba ilaahay idin kaalmeeyo waa noo kaal hadana qoyskan ayaa waxa soo gaarsiinay lacag $100 insha Allah oo lacagtii kamid ah waxaan rabnaa sidaas oo kale in dadka muxsinaadka ah ay u bixiyaan lacagta $100 gabdho muxsinaada soo diray adigana waxa weey ilaahay kugu anfaco iyagana ajir iyo xasanaad Allah ka siiyo lacag $100 oo gabar walaal ay soo dhiibtay oo sadaqa ah ayaan ku wadnaa ilaahay adiga carruurtaada iyo habeen barakeeyo iyadana ilaahay ajir iyo xasanaad ka siiyo maanta maada filim ba u maleynaya in filim wallahi billahi maanta khayr Allah siiyo ilaahay ha gaarsiiyo